waxaa waayahan dambe soo batay dad magaca culimada sheeganaya leh page iyo channel YouTube kuna soo qortay Sheekh Hebel cajiib haddaad arki jirtay qof xoogaa ka yar xishoonaya ama ka xajiimoonaya in la dhaho sheekh kuwani iyaga ayaa ku faanaya ragani waxay si indha la'aan ugu gafaan culimada iyo diinta wadaadkan waxaa la dhahaa Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir waxaan bartay muddo aan fogeyn labiskiisu waa sida caadiga يعني كمان لبست قميص انت بدل وما لها المقالك علومة كله وحو انت بدن كحل الشري الرماها قيسك مركان برتي سيدا آن مقلي تخصص كي سوى اللغة عربية أوكلية وحو برشادي شو تصع إنه يهيقف مفكر جعلنا إنه وحكست كهر مريو فكرة دي سي استعمالك عقلك وحو باهي مرد حداثة مقال وكجهل لي سياسة يقيبها دولة وحو أوقف في دينته بل آنو داونو دولة وحل هذا وأفر وشند نوع إيه دولة كود ودولة دينية وحي كلين مدحضو إلهي بان الدورتي إني كنا نأذاعة وحتى دولة النبي قد دولة دينية ماهن عليه الصلاة والسلام دولة إسلامية هيد ومدنية دولة دستور لأهد وثيقة المدينة صحيفة بيقول النبي قري وكله الشيء يهودا عربتا كل واحد جانا مدينة أردن دولة مدنية أو سيفيكا النبي قسمه عليه الصلاة أو مجاله ما هالدولة ما همارتي ديني أو حتى النبي وحي بقى كسر دقي لكن واحد جرى قيب وبني آدم كها ولا جس حي ولا جوهر إيماني ولا أورني كوما وافق سنين ولا للدودي دمر كيسان للدودي شعب كان للدودي مدح ذا للدودي واحد للدودي وحكستو السمايو وحبال لقوا دينه لكن واحد لقاها اللينون مركي الدين تايم لأن إلهي بوسودي بتاس مركي الدمو يسوي أنت وبكرنا وحكسي ولا قدو حتى الدين ولا قدودي وأن كأحد سنة أنا عيد هيا أنا حديث هيا ولا دولد معهين مارة الدين ودولد مدنية وحو الدولة النبي صلى الله عليه وسلم كدقيا دولة خلدات كيدو بدنا رسولك صلى الله عليه وسلم من أوها مد آنان كليجي تلنكرين مالك السنة أيك جسعتي سحتانك دولة الله بعض واحدة دولة ميلاتيرا ودولة عيدانكو هايستان أوكي يدنا ولا يقانا عيدانكو أنباو هايستان سي سربيبا سيدا مسار وكالي oo doorasho beenbeena ha sameeyaan amba sida ma aragtay ruushka ha haystaan dawladda saddexaad waxa la dhahdaa dawlad qabali ah waa dawladaha Afrika dawladdu waa reer dawladda afraad waxa la dhahdaa dawlad ahwaaiya waa dawlad hawo ku shaqeysa qofku ninka madaxa waxa madaxiisa ku jira ee ku soo dhaca oo mudad ku shaqeeyaan Cabdiraxmaan marka uu soo dhameeyay afartii dawladood wuxuu dhaliil ku tuuraya aad kulul afartii dawladood oo ay ku jirto dawladii rasuulka sallallahu alayhi wasallam bal ila dhageyso afartaa dawladood inay shaqo dhan way fashilmayaan wax socon karaya ma laakiin dawladda saxdi waa maxay waa dawladda loo yaqaano ad-dawla al-madaniya ee taaga siviilka dawla al-madaniya maxay tahay dawladda madaniga maxay tahay waa dawlad dad rayida ay xukumaan shacbigu ay doortaan dastuur leh xeerar leh mucaarad iyo muxaafid leh warbaahin leh dadku ay cabsan ay ixtiraamaan qaanuunka ay dhammaantoodna dawladda wada leeyihiin waxa dhada dawlad rayida dawlad madaniya marka annaku afarta midna ma rabno tan baan rabnaa wuxuu si cad u dhahayaa annaku ma rabno afarta midna waxaan rabnaa dawlad madaniya oo leh dastuur shacab ay xukumaan mucaarad iyo muxaafad bale waa hubaal dawladii rasuulka sallallahu alayhi wasallam intaas way ka marnaayeen waxay lahayd kitaab qur'aan ah bedelka dastuurka waxay lahayd xukun samaawiya bedelka rabida shacabka waxay lahayd muxaafad bedelka mucaaradka waxaana kaliya oo jiray mucaarad ka soo jeeday dhinaca kale yani diinta aan diyaar u ahayn oo aan rabin diinta inay faafto sidii munaafiqiintii iyo gaaladii quraysheed taas samaynteeda waxa aad uga sheekeeyay min marka laga soo qabto qarnigii 16aad ilaa maanta culimada waaweyn baa wax badan ka qoray Nicolas Machiavelli Jean Padin Martin Karl Marx Max Weber wadaadku markuu soo dhaleelay dawladii rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhinaca kale u amaanaya dawlad madani ah wuxuu leeyahay dawladdan waxa soo amaanay ama ka soo hadlay rag uu ku tilmaamaya culimo balse xitaa aan islaamba ahayn kaliya ma ahan dad wax qoray oo islaama laakiin kuwani islaamba ma ahan tani waa afkaarta xunxun ee bulshada islaamka lagu dhex faafinayo
marka la dhaliilo dowladii rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo laga dhigo dowlad lagu soo buuqayo meel kasta laga saxayay tani ma dhalinayso in dowladdaasi ay wax ka sii ahaayeen waa sida wadaadku sheegayay balse waa hadal intaa ka mug weyn dhalintu waxay ka qaadanaysaa in dowladdan islaamka laga fiican yahay in diintoodu ay wax ka sii yihiin khaladaad badanna laga heli karo marka dhinaca kale loo amaano dowladda madaniga dowladda cilmaaniyada iyo dowladda dimuqraasiga